بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلا وعل صاحبة قيمها قدرت إيقاعها لجمدلو ميل البعد جوكتالي مرحلة البعد لجو دولة سال وحال هود دكلا لها رمضان المبارك. قرآنك يا حديثك يا حدودك إلهي حبيبك أدقونا حريرك سراعو حناني يدين توحوق يسونكو حناني يدين توحوق يسونكو. maanta waa maalintii sagaalaad ee bisha barakeysan ee ramadaan. hadduu allaha u dilay raalli ka noqdo waxaan muuqaalkeena kaga hadli doonaa qur-aanka iyo ramadaanka sida markaa ugu wanaagsan ee aan u akhrin karno qur-aanka. socdaal training company waxaad ka heli kartaa qalabka elektarooniga noocyadiisa kala duwan sida qasaaladaha, fariijyada noocyadooda kala duwan, dhalooyinka tviyada guryaha, mukaafiyada, kuukarada noocyadooda kala duwan, iyo sidoo kale haamaha gaaska yar iyo weyn iyo dhammaanba noocyada qalabka elektarooniga ee loo isticmaalo guryaha. dhammaan agabyadan kala duwan waxaad ka heli kartaa xarumahooda kala duwan sida xarunta weyn ee ku taalla moolka Macalin Biimaalow oo ku yaalo kasoo horjeedka masaajidka Macalin Biimaalow iyo xarumahooda kala duwan ee suuqa Bakaaraha. wixii faahfaahin taadeeri ah kala xiriir telefoon lambarada shaashadeeda kaga muuqda. waxaan daawadayaal haddii allaha u dilay raalli ka noqdo aan eegi doonaa oo muuqaalkan ku gorfayn doonaa ujeedooyinka markaa qur-aan akhriska iyo sidoo kale niyadda iyo qur-aan akhriska markaa waxyaabaha isku xiraya ayaan eegi doonaa. waxaan kaloo eegi doonaa habka akhriska ee saxaabada ama saxaabadii sida markaa qur-aanku ay u aqrin jireen iyo sidoo kale culimmadii hore sida markaa ay u aqrin jireen ayaan eegi doonaa oo wax badan aan ka taaban doonaa. waxaan kaloo aan eegi doonaa oo markaan idiin soo bandhigi doonaa jadwal markaa qur-aan akhriska ku saabsan oo markaa la xiriira sida markaa qur-aanka kariimka aan u khatimi lahayn dhowr markaa jeer haddii allaha u dila raalli ka noqdo intii lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan. dabcan jadwalkan waxaa markaa uu ku cadeynayaa haddii inta bisha barakeysan ee ramadaan lagu guda jiro gaar ahaan 30 maalmood ee ramadaanku in markaa aad doonayso hal mar inaad khatilto sida markaa jadwalka aad u samaysan lahayd. haddii 2 mar aad doonayso inaad khatilto sida markaa jadwalka aad raaci lahayd iyo haddii aad doonayso 3 mar markaa inaad dejiso qur-aanka kariimka qaabka ama jadwalka aad markaa raaci lahayd ayaan idiin soo bandhigi doonaa hadduu allah uu dil raalli ka noqdo. waa hagaage waxaan kaloo mawduucyada aan dul istaagi doono ka mida waqtiyada ugu habboon ee akhriska ama qur-aan akhriska markaa la xiriira sidee qur-aanku qalbigeena u bedeli karaa. talooyin markaa baratical ah ayaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa. waxaa kaloo daawadayaal aan idiin soo gudbin doonaa khaladaadka lagu sameeyo marka qur-aanka la akhrinayo gaar ahaan bisha barakeysan ee ramadaan. حديثك يا حدودك إلهي حبيبك أدقونا حريرك سراعو حناني يدين توحوق يسونكو حناني يدين توحوق يسونكو. mar kale kula wacan saaxiibayaal barnaamijkan waxa uu ka mid yahay barnaamijyadii imtixaanaha ahaa ee aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan inta lagu guda jiro. maanta waa maalintii sagaalaad waxaana markaa miiska inoo saaran qur-aanka iyo ramadaanka iyo sida markaa ugu wanaagsan ee qur-aanka aan ugu aqrin karno si markaa miro dhal ah ayaan eegi doonaa hadduu allaha uu dila raalli ka noqdo. waxaa kaloo xusid mudan in maalin kasta oo ka mida bisha barakeysan ee ramadaan aan markaan idiin soo baahil doono sida caadada ahayd ee aad looga barateenba maalin walba iyo markaa mawduuc gaara oo ramadaanka la xiriira. waa hagaage mawduucani maanta haddii aan guda galno maanta waa maalintii sagaalaad ee bisha barakeysan ee ramadaan. mawduucanna dabcan waxa uu ku saabsan yahay qur-aan akhriska iyo ramadaanka.
alla subxaana wa tacaala waxa uu yidhi bisha ramadaan waa tan markaa la soo dejiyey dhexdeeda qur-aanka kariimka isaga oo markaa hanuun u ah dadka waxaana markaa alla subxaana wa tacaala hadalladaas uu ku yidhi suuratu albaqra aayadda 158 xiriirka markaa labadan waa quraan akhriska iyo ramadaanku waa mid markaa qoto dheer haddaba sidee markaa uga faa'iideysan karnaa akhriska qur-aanka kariimka inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ujeedooyinka qur-aan akhriska gaar ahaan niyadda haddii aynu eegno ka hor inta aan bilaabin akhriska niyo ayay markaa u baahan tahay ama niyo daacad ah in markaa la timaado ayaa loo baahan yahay waxaa la rabaa in markaa aad niyeysato in qur-aanku markaa uu hanuun kuu noqdo oo alle markaa uu kugu hanuuniyo jidka toosan in markaa aad u niyeysato shafeecad in markaa qur-aanku uu kuu noqdo maalinta qiyaamaha sidoo kale waxaa la rabaa inaad niyeysato dawo ahaan oo dabcan in markaa qalbigaaga uu ka nadiifiyo cudurada sida markaa xinka kibirka iyo sidoo kale shakiga ayaa loo baahan yahay in markaa qur-aanku aad u niyeysato ka hor inta markaa aadan akhrin habka akhriska ee saxaabada iyo culammadu markaa haddii aynu eegno culimmadii hore ramadaanku waxay lahaan jireen habab markaa kala duwan laakiin waxaynu raaceynaa ama aan soo qaadan doonnaa oo idiin soo bandhigi doonnaa dhowr qodob tartiil ama gaabsi in markaa qur-aanku aad u akhriso si degan adiga oo dhooraya sharciyada tajwiidka alle waxa uu yidhi u akhri qur-aanka si markaa tartiib ah ama gaabis ah tadabbur ayaa loo baahan yahay markaa inaad la timaado inaad markaa u istaagto aayadaha digniinta ah kuwa markaa naxariista ah iyo sidoo kale kuwa markaa ka sheekeynaya awoodda alleh adiga oo isweydiinaya maxay aayadahali aliga markaa ii leedahay xagaage jadwalka qur-aan akhriska iyo sida markaa loo qatimo haddii markan aynu eegno oo wax ka taataabano haddii aad rabto inaad dhammaysato qur-aanka bishan barakeysan ee ramadaan gudaheeda halkan waxaan idinkugu soo bandhigaynaa jadwal fudud oo markaa aad ku akhrin karto haddii aad rabto in markaa hal mar aad khatinto 30 maalmood ee ramadaanka akhri 4 bog salaad walba 5 salaadood ee maalinta iyo habeenkii haddii aad rabto in 2 mar aad khatilto bisha barakeysan ee ramadaan waxaad akhrin kartaa 8 bog oo aad markaa aad akhrinayso salaad walba oo ka mida 5 salaadood ee muslimka markaa waajibka ku ah haddii aad rabto in markaa 3 mar aad khatinto inta lagu guda jiro 30 maalmood ee bisha barakeysan ee ramadaan waxaad mar kasta aad akhrinaysaa 12 bog 5 salaadood ee maalinta iyo habeenkii aad markaa oogayso oo ka mida salaadaha faralka ah ee muslimka waajibka ku ah qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko talo ha ka dhiganin hadafkaaga keliya inaad dhammayso oo aad khatinto ee ka dhigo hadafkaaga in markaa ugu yaraan aad fahanto hal suurad oo cusub bishan waa tafsiirkeeda ama faham markaa aad ka qaadato aayadaha qaar oo suuraddaasi ka mida waxyaabaha ay ka hadlayaan waqtiyada ugu habboon ee akhriska haddii aynu eegno salaada subax kadib ayaa ka mida waqtiyada ugu habboon waa waqtiga barakada maskaxduna waa ay dhowdahay akhriskuna wuxuu kugu caawinayaa in maalintii oo dhan aad ku jirto xuska alle habeenkii tahajudka qur-aanka habeenkii la akhriyo wuxuu aad u taabtaa qalbiga nabigeena moxamed naxariisii nabadgelya korkiisa ahaatee wuxuu habeen kasta jibriil la akhrin jiray qur-aanka bisha ramadaan afurka ka hor halkii aad ku lumin lahayd wakhtigaagii sugidda cuntada
in markaa aad isticmaasho daqiiqadahaasi qaaliga ah ayaa ka mida waqtiyada markaa ugu habboon ee qur-aanka la akhrin lahaa. qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko. waa hagaage sidee qur-aanku qalbigeena u bedeli karaa haddii aynu eegno isticmaal tafsiir gaaban akhriso halbog oo qur'aan ah kadibna eeg macnaha dhowr aayadood oo aad dooratay. dhegaysiga marka aad shaqaynayso ama aad guriga joogtid shid qur'aanka akhris qurux badan markaa lagu akhrinayo. tani waxa ay keenaysaa naxariis iyo xasilooni gurigaaga dhexdiisa ah. ku dhaqanka haddii aad akhriso aayad markaa amraysa samafal ama kaa reebaysa xanta isku day in maalintaasi oo dhan aad ku dhaqanto. khaladaadka la sameeyo marka qur-aanka la akhrinayo in markaa lagu tartamo xawaaro sare iyada oo xarafla markaa la fahmaynin ama markaa aan lagu dhoorayn tajwiidka. akhriska bilaaliyadda ah in qofku markaa uu akhriyo isaga oo maskaxdiisu meel kale ay jirto sida baraha bulshada oo kale. ka tegidda akhriska in qofku maalin dhan uu dhaafo asaga oo halbeg aan akhrin asaga oo leh biri ayaan soo qabanayaa ama aan akhrin doonaa bogaha markaa maanta aan akhrin lahaa oo kale. gebagabadii qur-aanku waa martidii ugu sharafta badleed ee ramadaanka soo booqata. ha u horseedin inuu kaa tago asigoo kuu marag furaya in markaa aad ka jeesatay u akhri sida asiga oo maanta laguu soo dejinayo oo kale. qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko. intaas ayaan ku soo koobaynaa brogaraamkeenii maanta oo ka mid ahaa silsilada muuqaalo ah oo ku bixi doona qaab maqal cod ah. taasi oo aan ugu talagalnay in daawadayaasheennu ay wax badan markaa uga faa'iidaystaan ahmiyadda bisha barakeysan ee ramadaan iyo sidoo kale faa'iidooyinka ay loo leedahay. maalin kasta oo ka mida bishan barakeysan ee ramadaan waxaad daawan doontaan muuqaal gaar ah oo ku samadeysan maalintaasi xambaarsanna darsi muhiim ah oo aad wax badan ka faa'iidi doontaan. brogaraamadeenu waxay diiradda saari doonaan ramadaanka iyo sida ugu habboon ee aan uga faa'iidaysan karno. fadlan sheergarey muuqaalkan sidoo kalena la garay si saaxiibo badan oo wanaagsan sidaadoo kale muuqaalku uu gaaro. haddii aad lala soo gaartay ilaa dhammaadka muuqaalkeenna waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanid. ربي تصفر أننا قرعنا رمضاني رسول كني محمد ربي تصفر